بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta magaalada Oslo aan waraysi kula yeelanayaa gudoomiyaha gudida baarista xasuuqa mudane Khadar Axmedke oo isagu ka yimid dhawaan magaalada Hargeysa Khadar ku soo dhawow waraysigaygan ahlan sahlan ku dhawaad Khadar bal marka waraysa horta intayna waraysigeena guda galin safar baad magaalada Oslo ku timid reeyo Oslo marka hore waad ahayd bal hadana ujeedada socdaalkan gaaban ee kadisadeed ku timid bal xoogaa noo sheeg bismillaahir rahmaanir rahiim wallahi وانا هرير وسلو قلبي وسوف ريبانا مدو المكان لقي شوقو توانية سنضود وان كم مقنع وحنا المكان ويمي أكسرنا البابور وان قال حوجي تشبو يقول يلا أيان دختك ويمي دي إن ندي الله ينادو عاف معظم مرة حدي بعد ما نصدق دقة أيان تمعسنا أيان نقول نخذو تلقي خضر وقرتي إلهي حكوف وذايو داوع كاسو قاري بابوركا أتنتا كيو قدبنو كل إيماتك على هالكن وحدنا نعم بالدبوج نقول هوشي بحيسي أو قدوبيها جودي ذا باريس تحسوقه بل حوجان نوقت تعبوا محي جودي محي جودي وتاج أنت هي جودي داسي حاقبتان بسم الله الرحمن الرحيم جودي ذن باريس تحسوقه وحوي جودي لقى أساسي 1997 مقالة هرقيسة الله نحرسته مرحوم كي محمد إبراهيم رجال يو دولة دي سي بابرجي ورسي كل كي أي صوب حان تد لحسوقي أو بعد صوص عري مقالة هرقيسة ماشي اللي هذا مركز الجنوب أرجع كبعد بالله بهندسي إن كنت دنا الله سمايه مركز سيدي لو سمايه حول بانو هينا هوشاس أو تالسكي محمد سياد برre intii uu joogay 8 laga bilaabo ama 4 laga soo bilaabo ilaa 9 xasuuqii ay geysteen ka geysteen magaalada Hargeysa Gabeeley Reergaabo Bulco Berbera ani waqooyiga la oran jiray Soomaaliya waqooyigeedii oo imaka jamhuuriyadda Soomaaliland xasuuqii ay ka geysteen ayaanu ka shaqeynaa iyadoo aanu diiwaan gelino xabaalo wadareedyada dadka faraha badan li ku aasan yihiin annaga oo raadina gacan ku dhiiglayaasha dadkii ahaa ee shakhsiyaadkii dambiyadan geystay iyadoo aan loo eegaynin who he was actually qof walba qofkii loo helo markhaati inuu dambi ka galay ummadaasi ayaanu raadinaa kiiskiisii iyo markhaatiyadii loo heli karayay intaasaan record gareynaa intaa ka bacdina haddii la yiraahdo kolkaanu helno xaqiiqda ayaanu soo saari doonaa liiskaas dheer iyo maxkamadii lala tiigsan lahaa haddii la yiraahdo dambiilayaashaas xafiiskiina guud waa Hargeysa ayaan filayaa laakiin miyaa ka hawlgashaan gobolada kale Soomaaliland xafiisku waa Hargeysa waana ka hawlgalaa gobolada Soomaaliland oo dhan waan gartay Khadar waxaad sheegtay in aad durba dad badan aad ururuseen تركوب إنتين لك بتقول يسكر حبار ويدا يتذكر حبار وذرية هرتا هرجيسة جوده هذا إلى الله بقول بانه هنا أو حبار وذرات بربرة لبية طبعا برعو سديد عرقابو أفر مد بانه هنا قبيلي وحنا هنا أفر حبار وذرات ولينا معلوم البوي صوب حنا وحد يقول عليه حبار الدهرة هذا أيضا تكون نصو شيئانو أنو كاول كله marka waxa ku heshaan dadka ayaa wareysataan oo idii soo sheegay mise sidee u heshaan qaab nooceeya dadka actually noo soo sheegay marka waxa aanu hore u raadinay noo record gareysan mooyaane wixii dambe soo baxa dadkaan la soo ogeysiiya oo dabadna saasaan kaga howlgalaayno calaamadina GPS ka qaadna aan record gareynaa Khadar waxa sheegtay in kulli cid geysatay waxan ilaa hadda ma haysan cid xasuuqan iyo waxaan ka dambeysay oo si directiya dadkii amarka bixiyay maartay actually waxaan raadinaynaa hawsha aan haynaaba waa taasi weeyaan horta talis baa meesha ka jiray taliskaana waxa uu sareeyay Allah naxariiste Maxamed Siyaad Barre dad baa uga hooseeyay
dadkii uga hooseeyey iyo shakhsiyaadkii amarada bixinayay iyo shakhsiyaadkii fulinayay iyo kuwii ay u suuro gelaysay inay joojiyaan oo dembigaa ay damiyaan oo aanu dhicin intaba waanu haynaa rikoorkoodii waanu haynaa markhaatiyaalna waanu haynaa dad badan baanu markhaatiyaalo haynaa welina waanu ku daba jirnaa haddii alla yidhaahdo waan gartay marka hawshii maadaama dadkii haysaan markaa dhammaysaan baa shaacinaysaan cidda maaragtay hesheen iyo wixii oo dhan waxaanu soo saaraynaa liiska guud marka haddii alla yidhaahdo aanu isnidhaahno waad haysaan proof ku filan in lagu geeyo maxkamad dadkaas shaqaalahaagu waa inta maamulkii waa 7 imisa waxaanu kaga howlgalnaa meesha 14 qof 14 qof khadar guddigiinan budgetka yaa siiya budgetka imika waxaa haysa dowladda Soomaaliland dowladda ay fangaraysa oo waan gartay hay'adahan internationalka laftoodu waa noo ballan qaadan laakiin weli waxba nagama soo gaarin inkastoo hay'ad international oo dhakhtarraa aan qandaraas la haysano 5 sanadooda oo iyagu ay naga caawiyaan hawsha fulinteeda iyo xabaalo soo saaridda iyo ikhtibaarka imtixaanada lagu sameynayo lafaha iyo dadkan sidii loo laayay iyo sida u dhinteen iyo dadna qolo nagala shaqeysa jirta laakiin financially waxaan ku tiirsanahay dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland budgetkeeda idinku seminaaro iyo wax caynkaas ama tababaro miyaa laydin siiyaa si maartay waa laba ballan qaaday haddii la yiraahdo seminaaro iyo tababarba waxaan loo sameyn doonaa haddii la yiraahdo museum weyn oo aan ku soo bandhigno hawsha aan hayno haddii la yiraahdo dadka see isugu heshaan inuu ruuxani maadaama xabaalo wadeeriya helaysaan dadka see la fiinal isku toosinaysa halka idin qablisan waxaan noo qablisan nimanka dhakhtarada ah oo actually ninka Soomaalilandarkii intuu xabaal qodo ma oran karo xabaashani waxa weeye xabaal wadareed xasuuq oo la geystay way marxaatiisba furi kartid adigu marka gacan saddexaad waa inay timaadaa kolka United Nations-kuna way noo soo direen dhowr goor bay dhakhtar noo soo direen hay'adaasina way nagala shaqeysaa kuwaas dad international oo la yaqaano oo la fahan xasuuqyada dalal fara badan ka baaray ayaa nala shaqeeya kuwaasaana la qaadan karaa oraahdooda annaga haddaan keligiiyo baadhno cidna ma rumaysanayso sidaa darteed gacanta internationalka ee saddexaad baa hadiyo goorale naga caawisa oon ugu baahanay inay nala howlgalaan marka goormaydi yimaadama marka aa heshaan meesha aa baadhaysaan mise markaa baadhaanba sanadkiiba 2 goor bay noo yimaadaan xabaaluhu way noo calaamadsan yihiin kolba dabeedna buur baanu geynaa xabaal baanu geynaa oo ay faqaan oo soo saaraan lafa ku jira iyagaana yaqaan sida loo soo saaray iyo sida u baarayaan qof walbana lafihiisa la isku hagaajiyaa sida waxshinimada ah ee loo aasay iyo rasaastii ku dhacday iyo dharkooda rasaasta ku taala iyo lafahooda rasaasta ku taala ayay DNA ka qaadaan dadkii relativeska ah ee xigtada u ahaa dadkan ayaa had iyo goorale la helaa xabaalaha intooda badan dadkaas laga qaadaa DNA waa la isu eegaa sidaasay dabadna iyagu ku sameeyaan hawlahooda haddaan halka ku dhaafo shaqada aad haysid si wanaagsan baad u fasirtay waxaad ahayd xildhibaan ka mid ah golihii deegaanka hore xildhibaanada active-ka abaad ahayd ee qurba joog ah ayaan ka tegey bal markaad golihiinii deegaanka ee berigii oo aad loo canaanan jiray iyo kuwan maanta markaad soo eegtid farqi intee laga udhexeeya wallaahi horta nin xil qaaday eed qaad waana la canaanan jiray annaguna waxaan islahayn waa dadaalaysaan hase ahaatee waxa alla ku wanaajiyey kolka xafiis aad joogto ee uu kaaga dambeeyo nin aad kaaga fiican ilaa inkaar baa kugu dhacayso waxaa la odhanayaa arbaga ilaahayna dhaafiyey kolka dad kaa liita qof kaa liita kursigii kuu weydaartana waxaa la odhanayaa war salaamalla cala alxujaaj ilaahay noo soo celiyo dadkii hore hawshan hayey kolka waxaan malaynayaa inaanu annagu imika duca badan ka galabsanay reer Hargeysa kolka loo qiyaaso qolada imika joogta waagiinii waxyaalaha aad soo karto waa la taaban karaa waa qabateen waad ku xusuusan karaa maxaa ka mid ah hirgelin aanu hirgelinay cashuurta sida loo bixiyo iyo dariiqyo fara badan oo aanu sameynay baa jiray actually oo bilaantoodii maanta badde kolkaan mu jirin hal dariiq oo laga hortay la sameeyay mu jirin magaalada Hargeysa
hal dariiq oo saani u samaysnaana ma jirin macalkaa weyne ka baxa stationka ilaa shacabka ilaa New Hargeysa wuu burbursanaa repairing baanu sameynaynay inta badan dhowr dariiq oo cusubna waanu sameynay dariiqyo fara badan oo cusub oo haw badnaadaan weliba xaafadda gacan libax la yiraahdo imika waxaad joogtaa magaalada Oslo waxaa la filayaa in aad jaaliyadda Oslo aad la kulanto safar nooceed u sidaayad jaaliyadda haddii la yiraahdo jaaliyadda Norway waan la kulmi doonaa waa niman aan saaxiibayn oo badan baa jooga waxaan tusi doonaa hawsha aanu hayno waxyaalo ka mid ah ayaan haddii la yiraahdo soo bandhigi doonaa wax ma naga sii sheegi kartaa maya waxaynu ka arki doonaa haddii la yiraahdo naadiga kolkan indiin ku keeno ugu dambeyntii khadar imika waxaa tahay guddi sibila guddidan dee xasuuqa maxay baarista xasuuqa siyaasaddii maad siday dib ugu noqo maya lagama yaabo anigu inaan wax siyaasadoo dambe waad ka fadhiisatay haddii la yiraahdo maxaad bulshadii odhan haysaa ama kuwana jooga ama kuwii xaggii joogada kelmadaada ugu dambaysa dee Soomaaliya horta haddii yeelayso waxaan odhan lahaa siyaasadda iskaga wada baxa waayo haddii ummadda oo dhamme ay noqoto siyaasiyiin waxa weeyaan tallaabada way yaraanaysaa siyaasadda fahamkeeduna wuu yaraanaya waxa fiican siyaasadda in dad gaara loo daayo waxaan odhan lahaa ummaddu danteeda ha qabsato oo siyaasadda ha iskaga wada baxdo waan gartay waa mahadsantahay khadar waraysigaas